Wiil la yiraahdo Caadil ayaa waxa uu la noolaa waalidkiisa. Waxa uu markaasi ka ahaa arday magaalada weyn. Waxa uu aadna u jeclaa safarada. Markii fasax la gaaray ayaa waxa uu go'aansaday isagii saaxiibkiis Axmed inay booqdaan tuulo yar oo markaasi ayadiis ku nooleed. Tuuladaasi waxaa laga sheegay in dad badan ay hal mar ku wada dhinteen. Sababtay u dhinteenna aan la garanaynin, laakiin dad badan oo tuulada joogay waxay sheegaan markaasi inuu u sabab ahaa ceel yar oo tuuladaasi ku yaala. Ceelkaasina markaasi waxaa lagu yaqaanay inay ku nool yihiin waxyaabo aan bilaadan ahayn. Waxa ay soo galeen markaasi tuuladii xilli ay duhur ahayd. Markaasi ma uusan fariisan Caadil. Waxa uu markaasi bilaabay inuu weydiiyo dadkii tuulada su'aalo ku saabsan ceelka laga sheekeynayo. Qof walba oo tuuladaasi joogay, yar iyo weynba waxay u sheegeen inuu ceelka ka fogaado. Markaasina tuulada dadka jooga waxa ay seexan jireen xilli hore, cabsi ay markaasi qabaan. Markaasi Caadil arrintaasi wuxuu u arkay inaysan arrin run ahayn. Waxa uuna markaasi go'aansaday xilliga habeenkii markii la seexdo inuu isaga indhihiisa ku soo arko. Markii ay habeenbarkii maraysay, ma uusan xataa kaxaysan saaxiibkiis. Asaga ayaa kaligiis go'aansaday inuu baxo. Markaasi si tartiib ah ayuu uga soo baxay gurigii. Waxa uuna aaday dhinaca ceelka. Ceelkii markii uu soo dhawaaday ayaa wuxuu arkay ceelka inuu iftiin yar oo guduudan ka ifayo. Markaasina wuxuu is yiri dadkii tuulada ayaa markaasi waxay ka shideen laambad agtiisa. Agagaarka ayuu fiiriyey, waxna wuu ka waayay. Markaasna ceelkii u soo dhawaaday. Daboolkii kor saarnaa ayuu si tartiib uga qaaday. Isla markiina wuxuu dareemay qabow zaa'id ah. Inkasta oo habeenku iska kululaa, meeshuna ay ahayd meel saxaro ah. Markaasi waa uu fiiriyey ceelkii. Waxba ma arko. Mar labaad ayuu fiiriyey. Markaasna xoogaa wuu ka soo fogaaday. Haddana wuxuu maqlay sharkan dad hadlaya codadkooda oo tiradii ka batay. Dhinacaasna waxa ay ka yeerayeen dhinaca ceelka. Isku soo dhawaanin haddii kale noloshaada inta ka dhiman xanuun baad ku noolaanaysaa. Codadku waxay ahaayeen kuwo tiradii ka batay oo isku jira heer uu markaasi Caadil si silaca ku fahmay hadalkooda. Markaasi wuxuu soo qaatay dhagax yar oo ceelka ag yaalay. Wuxuuna yiri isagoo qoslaya, waan ogahay inaad dadkii tuulada tihiin oo aad igu ciyaaraysaan, rabtaana in ay cabsi galaysaan, laakiin aniga ma cabsanayo ee iska soo baxa. Kadibna waxa uu sameeyay dhagaxii intuu qaatay ayuu ceelkii ku tuuray. Caadil wuxuu sugay inuu dhagaxa markaasi biyaha ceelka taabto si uu sharkan u sameeyo, laakiin sharkan maba aysan yeerin. Taa beddelkeeda agagaarkiisa dhan ayay waxay noqdeen mid aad u qabow, sidii inuu wax aan la arkayn uu ag taagan yahay. Markaasna waxa uu maqlay wax dhegtiisa si tartiib loogu sheegayo. Markii koowaad ma uusan maqlin, kadibna markii uu sii dhageystay ayuu fahmay. Caadil barasharkii ayaa dhacay. Codadka yeeraya waxaabad moodaa inuu madaxiisa ka dhex yeerayo sida uu ugu dhow yahay darteed. Markaasna gadaal ayuu u soo jeestay si uu u fiiriyo qofka markaasi dhegtiisa wax ugu sheegayo, asagoo weli aaminsan inay ama yihiin dadkii tuulada ama saaxiibkiis, laakiin gadaashiisa waxba ma taagnayn. Dhulkii hoostiisa ahaa wuxuu bilaabay inuu markaasi gariiro. Caadil markaasi agagaarka ayuu fiishay. Intuusan dhaqaaqinba ka hor waxa ayaa ka soo baxay ceelkii. Waxaasi ma uusan ahayn bilaadan. Waxa uu ahaa wax aad u madow, aad u cabsi badan, una dhaqaaqaya si aad u fudud sidii inuu biyo yahay oo kale. Caadil markuu si fiican u fiirshay indhaha bahalkaasi waxa uu ahaa wax aad u guduudan. Caadil wuxuu damcay inuu gadaal u baxo inuu cararo, laakiin ma uusan dhaqaaqin. Wuu dhaqaaqi waayay, meesha ayuu ku qalalay. Markaasi codadkii tartiibta u hadlayay waxay isku beddeleen qaylo, ayagoo markaasi ku hayo xanuun aan dhammaad lahayn. Caadil waxa uu dhaqaaqay dhinaca ceelka, asagoo markaasi aad moodid gacmihiisa inay ku dhagan yihiin silsilado oo uusan arki karin. Waxaana loo jiidayay dhinaca ceelka. Markaasi indhihiisa caad ayaa galay. Dhulkii oo dhanna wuxuu bilaabay inuu isla wareego. Markaasi madaxiisa ayaa laga dhex hadlay. Waxaad rabtay inaad aragtid waxa gudaha ku jira soo maahan, xataa ayaad arki kartaa. Dhulkii hoostiisa waa uu kala dilaacay. Caadilna waxa uu dareemay awood aad u badan oo u jiidaysa dhulka hoostiisa. Markaasi si xoog ayaa dhulka loo jeeday. Ceelka ayuuna ku dhex dhacay. Markaasi inta uu biyaha ku dhex dhici lahaaba waxa uu ku dhex dhacay dhul adag. Markaasna waxaad moodaa inay carrigoo dhan ay tahayba adduunyo kale. Markii uu agagaarka fiirshay
waxa uu arkay waxyaabo dad u eg oo meesha warwareegaya ayagoo afkooda kala furan yahay. Waxaa mid moodaa inay qaylinayaan, laakiin codkoodii uu baaba'ay. Wejiyadooda way baaba'san yahay oo waxaa mid moodaa in gebigooda wejigii laga bedelay, jirkoodana wuu jajaban yahay. Meesha ayay iska warwareegayaan sidii inay cadaaban yihiin oo kale. Markaas ayuu wuxuu gartay Caadil dadkani inay yihiin dad horay dad caadi u ahaan jiray oo sida isba hoos loogu soo jiiday, ayagana sidaasoo kale loogu soo jiiday. Caadil wuxuu isku dayay inuu cararo, laakiin meel uu u cararo male. Darbiyada agagaarkiisa oo dhan markaasi waa dhagaxyo un. Markaasna wuxuu maqlayaa codadkii madaxiisa ka yeerayay oo qaarna ooyayaan, qaarna ay qoslayaan. Markaasna ay leeyihiin, waad diiday, waanad ku qosashay digniinihii lagu siiyey, haddana kama bixi kartid meeshan. Markaasi waxay tusayeen asaga madaxiisa gudihiisa markaasi waxyaabo aad u cabsi badan oo qof bini'aadana oo marnaba rumaysan karin. Markaasna wuu qaylinaya habeenkii oo dhan, asagoo qayladiisa ay ku darmanayso kuwii hore oo meesha u joogay. Subaxdii xigtay, dadkii tuulada ayaa waxay heleen Caadil oo markaasi ag jiifa ceelkii, asagoo markaasi tintiisa gebigiisaba ay isku beddeshay caddaan, jirkiisuna gariirayo, waxba uusan dhahaynin, keliyaatu oo meel cidlaa si tartiib waxyaabo aan la fahmaynin ku akhrinayo. Markaasna indhihiisa aad moodid inuu nuurkii ka tegay. Habeenkii markii marisay, dadkii tuulada way soo kaxeeyeen. Markaasna isaga waxay ku xireen qol yara ayagoo rajaynaya inuu caafimaado. Laakiin qof walba markii uu hurday waxay maqlayeen qayladiisa oo saa'id ah. Markaasna uma aysan tegin. Subaxii markii ay u tageenna waxay arkeen inuusan meesha joogin. Waxa ay maqlayeenna sharqan ka yeeraysa dhinaca ceelka. Markaasna way garanayeen dadkii tuulada in dadka ku nool ceelka ay qaateen naf kale.